gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo maanta ka soo degay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Berbera ayaa mar warbaahinta ugu waramayay qolka nasashada ee VIP ee madaarka Berbera ayaa wax laga weydiiyay sida uu arko furitaanka dastuurka ee uu soo jeediyay madaxweynaha Somaliland waxaana uu tilmaamay Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland in la furi karo dastuurka marka loo baahdo isla markaasna isagoo su'aashaasi ka jawaabaya waxa hadaladiisii kamid ahaa dastuurku waa markii loo baahdaba markii loo baahdo dastuurku waa la furay dastuurku quraankii maaha dan baynu u samaysanay meeshii aynu danteena uga garan weyno waa bedelay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa sidoo kalena waxa wax laga weydiiyay aragtidiisa ku saabsan shirarka Ingiriisku uu qabanayo Soomaalida waxaanu ku jawaabay isagoo ka arintaasi ka hadlaya tawalba way socdeen oo shir walba waxa qabaa in laga qayb galo dadku inaga caqli rooy haday iyagu ina khiyaameynayaan haweeneydu iska arag wixii inoo dana huunba meesha يلا وحنا نودنا هاي النوامات وحين نودنا جين كراوي بخلاهم gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waan babaxay dhinaca caasimadda Somaliland ee Hargeysa Karim Saciid Saalax telefishinka caalamiga ah ee Cable TV Berbera